Tirada dadka ugu badan uu soo ritay cudurka shuban biyoodka ee ku nool duleedka iyo gudaha magaalada Muqdisho ayaa ku jira isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir waxaana dhowaan TV-ga Universal warbixin uu ka diyaariyay Torres Luul Maxamuud Maxamed ee baaq ugu dirtay ummadda Soomaaliyeed inay soo caawiyaan dadka dhibaataysan ee ku jira isbitaalkaasi. waxaa baaqaasi ka soo jawaabay hay'adda Alpha Trust oo ugu deeqday dadka qaba cudurka shuban biyoodka daawo loogu talagalay in lagu samata bixiyo. Cabdullaahi Axmed Nuur oo ka mid ah shaqaalaha TV-ga Universal ayay u soo wakiisheen waxaana uu ku wareejiyay Torres Luul Maxamuud Maxamed oo ah madaxa caafimaadka carruurta isbitaalka Banaadir. waxaan joognaa isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho anigoo ah wakiilka hay'adda Alpha Trust waxaan maanta ku wareejin doonaa Torres Luul Maxamuud madaxa qaybta carruurta isbitaalka Banaadir daawo loogu talagalay cudurka shuban biyoodka oo isbitaalkan bukaanada ugu badan ee jiifa hadda ay la ildaran yihiin. dhawaan ayaa war laga baahiyay isbitaalka oo Universal ka baxay doctoreysada baaqi ay dirta kamid ahaa inay gabaabsi tahay daawadii loogu talagalay in lagula tacaalo xanuunkaasi oo ilaa carruur kun qiyaastii gaaraya isbitaalka jiifeen. sidaa daraad ayaa hay'adda Alpha Trust oo arrintaasi ka duulaysa waxa ay isbitaalka ay ugu deeqday daawadaasi kala duwan oo ilaa faleembooyin 4 nooc oo kala duwan ah iyo waxyaabaha muhiimka u ah cudurka shuban biyoodka iyo sidii loola tacaali lahaa. waxaan rabnaa inaan markaa ku wareejiyo anigoo wakiilka Alpha Trust Torres Luul daawadaasi oo iyaduna ay naga guddoonto hadduu aalid markaa iyada ayaan ku wareejinaya. Titoreesada ayaa ka mahadcelisay daawada la gaarsiiyay maanta waxaana ay sheegtay in daawadan ay caawinaad u noqon doonto bukaanka qaba xanuunka shuban biyoodka ee ku jira isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho. jawaab ay bixisay maxamed groupka Alpha Trust oo ka soo jawaabay baaqi oo arkay wixii uu awoodayna ka dhiibay haddii qof walba wuxuu awoodo oo ka dhiibo baahida noo taal waa buuxsami lahayd. marka aad ayaan ugu mahadcelinaa gaar ahaan maanta waxa naloo keenay oo arrin garlagteedka oo aan aad dhibaato ugu qabno oo aan ognahay inay isbitaalka ilaa iyo 70 qof oo shuban qabo markasta la soo gelinayo haddana aan loo haynin wax ku filan. marka saas darteed ayaa waxay keentay inaan hay'adaha waxa ay keenayaan markay ku filnaan inay dadweynaha Soomaaliyeed iyo hay'adaha maxalliga ah inay ka jawaabaan. marka aad ayaan ugu mahadcelinaynaa hadday noqon lahayd waxyaabaha kala gudsan oo ay noo keeneen galoofiska kaanulayaasha intaba waa gabaabsi. marka arrimahaas iyo ringar lagteedka marka waa ugu mahadcelinaynaa waxaan u sheegaynaa in isbitaalku u baahan yahay intaan in ka badan sababtoo ah waa meesha kaliya shubanka dalgula tacaal magaalada dhan oo ka jira xaalad waa xaalad degdeg ah bishii hadda aad kaliya ilaa iyo 1400 oo waxa soo gashay dad waaweyn iyo carruur iyo ilmo isugu jiro. marka waa arrin oo degdeg qofkan hadaada markaas wax u qabanin waa dhimanaya. marka ilaa iyo hadda inta sanadkan bilowday isbitaalka 5000 oo qof wax loogu qabtay oo 100 kamid ay dhimatay. Zikriye Maxamuud Timcade Universal TV Muqdisho.